badan waxaan u maleynaa markii koowaad sarkeen ay tahay. طبعا ومركي كوادن ساركينو لكن ما مركي كوادن سبرنينو Horun in badan baan ismaqalnay. Ugu yaraan waa iskarnaa cidana hay magaceedina. anigu intaa ka balaaran baan ku aqaanaa way siyaada marar badan iga ka sheekeeyay markastoo naftiisa ka sheekeynaya adigana ku soo qaata Wuxuu qasbay midaas. Waa in noloshiisa isku qasan. Isna ma kala saar karo, ana ma kala saar karo. waan la socdaa saaxiibtinimadeena waan idinku boogaadinayaa waayo weligay maan arkay laba qof saas oo kale oo saaxiibo Waad mahadsan tahay. Anigu aad baan u socdaa shirkadeena jacayl. Runaantii siyaasi ku jecel wali ma aragnay saas kale u jecel baan. Wali hambalyeynaya. waan mahadsan tahay walaa Odan. Haddaan gudub jeedada markaan ku beelmay. Waxa rabaan kala hadlo arrin kala hadlo. Laakiin dantu ugu qasabtay. haye walaal baliishay Waxaan filayaa arrimo badan oo siyaad noloshiisa quseeya oo inuu ku sheegay jiraan. sidee wax ma iga sheegi kartaa walaal arrimaha waad ogtay siyaad reerkooda durfa iska jiraan. Waxay jirta lacag aan soo amaano saabire jacayl ka bixinayna. حاجتي صبري هو ماشي قد انتجاه وحبها يسكهون عاونا كرنا عشرة صفا حتكون مش كورسان تاعي waxba waxaan yar bas kaga ciyaaray ما بنقلس هو وحي لهاي maxay kula hadna هذا ايش ما بنقلس ma maqleen هاي واي اسك عيرنا soo noqonay buskooyna ku keenay hayde ma ku sii raacawna may walaal iska sii joogan soo dhaqsanay صبريني نبلسوكوي هويو ما وحبا كودمان إنن طيارة إن مغلسة محل لهاyd وش خدتي الخوي والله وين إلا مسكحة ka baxay ma baan arkin bayna fadhida tawa taas caawisiyaad u sheegaysaa ka gurtaa tawa هو إن شاء الله واحد وش يجي سواني كل من ما نقلس ترمان مقلين hooyse wax maqasho mid taqaanide intaana wax dhacin shaqada halka mid naga joojini هو إن شاء الله واحد بدي عمايان wax ma kuu sheegaa may maqlin bateriyada maqlaysaan ku tusi doonaa orada soo dheere dhammaan dhacdooyinkaasoo dhan siyaad iimu sheegin muxuu iga qariyay walaa inuu dhibaato culays ka saaro uu tasoo diiday walaal labeen qos ka dhaxaysan arka oo saaysan waan ogaa culaadda labadeeda qosla ka dhaxaysa laakiin marnaba ismaan lahayn siyaad baa dhibaato naftiisa soo gaadhay kaa qarnaya riyadeedana may ahayn aqoon fiican baa sidoo leedahay wana xisaab badan inta cid wax weydiin lahana nadar xumo intuu ay ka jeceliyaa lacagtaada ku sheegayna aniga gacanta ka soo qaad okay maxamed run ii sheeg waxyaabo kaloo siyaad iga qarnay ogtahay mii jiraa waa arrinkaada ku sheegay culays way ma dareemi kartid oo ka fiirso way kuma sheegeen waxa ka codsan arkaas labada keen lagu ekaabo waa ballan walaal arrinkaas dhexdeena ma dhaafayo laakiin walaal ii sheeg wax kaloo siyaad iga qarnay ogtahay mii jiraa wax kale ku sheegay hon garnay okay maxamed lacagta anigaa soo qaaday meelaan ka soo qaadaba waanaad ku mahadsantahay inaad arrintaa ii sheegtay ood ila wadaagtay waad mahadsan tahay wanaag lacagtan ay soo helayso xaaladda wanaagsan xaafadii ku jirta darteed laakiin waxaan kaa codsanaya arrinkan aad ka cidina ma ogaanaysa insha allah sheegay marna go'aan arkan ma ogaanaya xaggayga laakiin adiga xaggaaga yimid ku ogaani okay diyaar maanta gabdha waxaan heshiis ku nahay adiga jacaylkaaga aniga saaxiibkay inta faadil ku jeekala dabaarna waan kula qaatay arrinkaa waanaad ku mahadsantahay sida fiican aad soo abaabushay haddana maalin wanaagsan horta xabiib aan galo waajibkayga mahad celinay wax kaaga mahad celinay waqtiga midka aniga aad siisan iyo sidoo kale jawga aad isamis hey manihiin laba qof waxa iskaga mahad celiya waxa waqtiga higiridine isha sida qarsoon aan ogeyn kaaga sheekeynaya fasax noqon doonta qofkii saddexaad ee sirtan ogaad labada qof kala waa waani aabo walaashaada kala mooganaya labada qof kale soo saddexaynaya waa adigana sababta kuugu sheegaya sirta intaa leeg waa kalsooni iyo jacayl ku kuma asantay qaali jacaylkaaga iyo kalsoonidaba laakiin ii sheeg qisada qarsoon aan ogeyn
waxaa jira qoys aan maalin rabanahay oona qoyska adeerkay waxaana dhex yaala colaad aan dadka shisheeyaha dhexaawin waayahay haye kadibna soo dhow walaa waxaan ku qabanay mahadsantahay walaal dahab baan doonaya inaan iibiyo dahab baad rabtaa inaad iibiso okay waan iibsan هذا سيدتهاي waa fiicane walaal maxamed lacagtan kuu soo diray waad aragtay maaha هاوان أركي عاد بقول لا تبهد أنا لا أبغى أفرط وادي صدقي 120 deyntiisa kaga bixiya 120 jaacada saabireen ku bixiya لكن ولا محاس كله بتاعي مدوا حاليا دين تبحنون waa caadi walaal dhib ma laha balanteena waxay ahayd inay ninka barbar istaagno أوكي بقول لا تين كل حاجة كنا كلها وأنا صار هذا كلها wallahi ma garanayo de adigu suun farsamee هاي هذا وما صنتها هلو سيد هاي تبتها هاي هكذا يوك عليه okay saada colaada iyo dhibaatada inta leeg maxaa keenay awowgay waxtada wuxuu dhalay aabahay iyo adeerkay la yaraantiisa wuxuu iska ciyaar xaafo dadooga meelaha khamriga ku caaba inta awowgay xanuunsanayay marna muu soo wardooni jirin waxa hayay uu dhibtiisa ku dhinto aabahay haye awowgay markuu sii dhimanayay aabbo wuxuu u sheegay inay jiraan hanti dhulal iyo beer iskugu jira oo qarsooneed wuxuuna ku yiraahday walaalka kala qaybsada laakiin aabahay adeerow ka qari sabab xoog qari laakiin sababta aabbo wuxuu ogaa hadduu u sheego inuu xaraashay uu iibinayo oo siisanayo qaad iyo waxaan naf lahayn sidaa darteed aabbo isaga kala wareegay magaciisa hantida uu ku qoray okay hadda waxaad leedahay hantidii adeerkay waxa dhacay aabahay lana wareegay laakiin ilaa hadda ma fahmin sababta colaadaas oo dhan keentay ana ku sheegaya qof hadda hantidiisa ka dhacdo oo haddana soo dhaweysto waxa hubaal qofkaas inuu mar ogaanayo in hantidiisa aad ka dhacday sidaa darteed saano adeer waxba u ogaan aab meesha wuxuu keenay colaad dadkan wuxuu ugu sheekeeyay inuu dibjirnimo ku nacay maxaad ka fikiraysaa hadda waxaad leedahay qoyska adeerka faqriga iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin waxa sabab ahaa aabahay naga cali sidaa maaha xitaa aabba hadduu dhaxalka siin lahaa noloshan unbay ku jiri lahaayeen waxba may samaysteen khamri iyo qaadun bay ku cuni lahaayeen okay saacad su'aal baan ku weydiinaya aabahay iyo adeerka miska hooya may waa kala hooyo laga yaabo haddii isku hooyo noqon lahaayeen inuusan waxaasoo dhibaatahaba ku sameeyeen haddaba isu aabba wada dhalay maxay sheegtaa kala hooyadu adeer isaga noloshiisa sidaan u gartay okay qalab ku maasan tahay sirta weyn ee adigu aamintay waxaan kaaga ballan qaadayaa inaan labadeena kaliya inoo dhaxayn doonto waad ku maasan tahay ma maasan tahay qalbi anigu waxaan kuugu sheegay oo kalsoonaan kuugu qabo ugu dambeyn waxaad sadkaysaba caawa kaa muuqateen shaqo badan qabatay taadii taydiiba iga dhaaf waxaasoo maxaad war haysaa hawshii ma kusoo guulaysatay mise maxaad u malaynaysaa ma malayn karo waayo anigu waan ogo haddaan wax maleeya wax xununba maleeya sida markas waxaa wax xun niidaada geliyey malaha wanaagsan moraalkii niiduu dhisaa markas wax wanaagsan marayso aniga lama aha sidaas haddii aad ka fikirayso waxa u dhexeeya guusha iyo guuldarada waxaa aada looga fikiraya guuldarada sabab sababta niyad jabka kugu imanaya ayay kaa yaraynaysaa
ka waran adoo guusha malaysanayay oo maskaxda aad ugu weyneynayay haddii guuldarrada kugu timaado waa moraal jab aad u weyn sax laakiin adoo guuldarrada malaysanaya haddii guuldarrada kugu timaado wax weyn kaa bedeli mayso anu ma garee sababta dhanka waxaan ugu fikirto hadalii dhammaantii hawshan kusoo guulaystay waaw waad mahadsan tahay saaxiib run ahaantii haddaanad garabkayga taagnaan lahayn ma aqaano sida noolan lahaa lacagtii deyntan lagu lahaa keliyata maaha sidoo kale tiisa barin aan soo qaaday jaamacadda laga bixinayay oo maxaad saaxiib taas ugu kalaftay tan bay inaga culays naga haysay midda kale labada lacagoy saan bixin karnaa waxbaa ka wareerin lacagtan degdegna looma doonayo xilligan doona bixin karnaa 1 sano 2 sano hadda 5 sano kadib yacni ninkaad lacagta ka soo qaatay uma baahna miya nin weyna suldaana ka soo qaaday xuwaad inta waxbaa soo celinina laakiin sana kul waa qasab la soo celiyo okay waa war wanaagsan laakiin lacagtaadana waa sida ugu dhaqsiyaa badan u celin karnaa okay diyaar haddaan ku diraya dhegeyso habeentii bil tala guursanay maad garanaysaa may wati maad garanayn sahradii dhanayd ee jaamacadda la dhigan jirtay ee marmar guriga ii saraaci jirtay sahra maxaad garanaysaa sahradii dheerada dhuubnayd ee habeen dhan guriga ila joogto waad garanaysaa allaha wataa sameeyna jaacada ka bixin maya ka baxday mise wadi kar wadi markay 100 jeer imtixaan ku dhacday ay iskaga baxday marka goorma la hoynaya habeen dambe madaraac saadoo anu aroos mintay karayo dhegeyso odanay dahabkayga 3 aroos hore ku tagay marba in dib la igu arko dahabkaaga si diyaar kaagan si xiranaya dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Ria Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS sabri hay wala kala agteeda soo fadhiiso hay wala ma waxaad u baahantahay baa jira may wala ii sheeg iga xishoon walaalkaa baan ahay ii sheeg haddii waxaad u baahantahay jiraan kariimo cadaro ama waxyaabaha dumarku isticmaalaan may wala waan haystaa waan mahadsan tahay okay walaashay inaad guriga isku joogto ood waxbarashadaada ka hadho aniga aad bay dhibaysaa waayo ma doonayo in hablaha yarar qeyrkaa ay kugu faanaan anaguna jaamacadaan ka baxnay aduguna xamaad baran anigu waxaan doonaya inaad noqoto qof nolosha heer ka gaadha aniguna aan ku faano adiguna waxaan doonaya in la dareento taas walaal waan kula dareensanahay mar kastana waxaad jeceshahay horumarkayga waan ogahay sidoo kale waxaan doonaya inaan ka shaqeeyo farxaddaada iyo qosolkaaga mar kastoon ku arko waad murugaysan tahay sabab walaal ma murugaysan walaal adin baa moodaya waan ogahay saabri inuu qoyskeena duruuf iyo nolol adigoo ku jiro laakiin maaha taasi inay nolosheena farxadda iyo micnaha ay ka qaato waxaa jira kumanaan qoys oo nolosha aynu ku nool nahay mid ka hoose ku nool haddana habiya waan ogahay walaal midaas waana ku qanacsanahay noloshaan ku nool nahay saasaan kaa rabaa jaamacaddii semesterkan waxbaa ku dhaafay ma badna laakiin waan ka daba tegi karaa kugu canaanan maayo laakiin lacagtii aan maalintii dhowd ku keenay waa dayacday oo tan mas-uuliyad adag iska saar
hay wala waa mahadsantahay okay laakiin waxa cabusnimadan iyo xirnaantan iga daaday qosol iyo farxad muuji hay wala waa diyaar hay habeen wanaagsan walaal hay wala habeen la mid ah halo ii waran xawi waan ku fiicanahay qaali adigu ii waran see tahay waan ku xiisay maxaad ila soo hadli weyday ka waran haddii aan ku dhahdo hadda aadin kaa fikiriyay haddii aad soo wici anigaa ku soo wici lahaa mise weli waad baqanaysaa waxaad saleeday iyadoo kula hadlaysaa la arki doonaa kolley taa qudhigeedu sababahan aan kula saadin bay ku jirtaa haye qalbi lacagihiina ma iska soo bixisay lacagtee waxaan sheegayaa lacagtii jaamacadda saabirin u bixisay yaa adiga kuu sheegay in lacag la raadinayo iyo saabirin jaamacad laga bixinayo sheekadaas dhan yaa kuu sheegay ta adigaa ii sheegay mid hilowday goormaanuu kuu sheegay waan si kaftamaya qaali saabirin barmaandhood saragno iyadaa ii sheegtay صح ويمكن صابرين معادي والله عشان aad uma wada hadallo laakiin haddii aan saragnaa caadi baan iskaga sheekaysanaa colaadda hare ima hayso war fiican baad sheegaysaa way fiican tahay saabiri haddii sidaa garatay laakiin si aad adigu arrimaha kala hadlin waxaa laga yaabaa inay kaa qarinaysa aan caadi sunahay kalama hadlayo waayo haddii kale waxay ogaanaysaa inaan labadeena wada hadalnay haa qalbi haddii ogaato inaynu wada hadalno waxaa laga yaabaa inay arrinteenu ay fashilanto haruurin qaali waxaa ma weydiinay kulli barrina waad kala haysaay waana xilli dambe iska seexa qaali waayo gacaliso habeen wanaagsan haye habeen lamida